marka hore waan idin amaanayaa inaad aaminteen inaad dalka leedihiin waan idin dhaliilayaa sababtoo ah inaysan weligii muuqanin shaqo dhab ah oo ay tusisaa inaad aqbasheen inaad qabsataan hoggaanka dalkiina waxaan u baahannahay dad Soomaaliyeed oo yiraahda 28 sano ee la soo dhaafay ayaa dib noogu filan sanadka soo socda waxaan shacabka Soomaaliyeed u hogaamin doonaa si ka duwan sidii hore sanadka soo socda waxaan ciribtiraynaa musuqmaasuqa waxaan ciribtiraynaa qabyaaladda waxaan ciribtiraynaa ninjeclaysiga waxaan ciribtiraynaa wax kasta oo dowladnimada ka hor imaanaya waxaan rabaa inaan idiin sheego horey waxaa looga hadlay isbeddel waddankan waxaan uga baahannahay isbeddel dhinac waliba isbeddel wax ka beddela dhaqaalaha isbeddel wax ka beddela amniga isbeddel wax ka beddela dowladnimada isbeddel wax ka beddela xaaladda xilliga jirta sida aad ogtihiin waa markii ugu horreysay ee aan xaqiijinno guulo muhiima waa markii ugu horreysay ee caalamkii intiisa kala aaminaan in Soomaaliya ay cagta saartay waddadii horumarka waa markii ugu horreysay 28 sano kadib ay Soomaaliya dib u hesho una soo ceshato maamulkii hawada waa markii ugu horreysay ee muddo kadib ay dowladda Soomaaliya xaqiijiso in ay tahay dowlad ay shacabkeedu ku kalsoon yihiin waa markii ugu horreysay ee dal iyo dibadda shacabka Soomaaliyeed dowladnimadooda u bannaan baxaan haddaba ciddii doonaysa inaan ku jirno musuqmaasuq ciddii doonaysa in dowladda la dumiyo ciddii doonaysa inaan horumar la gaarin ciddii doonaysa in ay rajada shacabka Soomaaliyeed ka hor timaado intaasi ciddii doonaysa waxaan u sheegayaa inay saaxiiba yihiin 28 sano ee la soo dhaafay ciddii rabtaa inaan la dagaalanno musuqmaasuqa inaan la dagaalanno qabyaaladda inaan gaarno guulo iyo horumar inaan shacabka Soomaaliyeed si ay dhamaan u hogaaminno intaasi ciddii doonaysa waxay ogaataa inay haysato saaxiibo lagu kalsoon yahay sida ay kalamaan sheegtayba shacabka Soomaaliyeed waa inaan laga hor istaagin mustaqbalka farmaajaysan ee barbaxsan iyo horumarka khayraysan waa inaan ka hortagnaa in dad dana gaar ah wata ay shacabka Soomaaliyeed rajadiisa hor istaagaan yaan la idin sirin waxa laga hadlayaa ma aan xasan khayre iyo farmaajo waxa laga hadlayaa waa dalka Soomaaliyeed waxa laga hadlayaa waa shacabka Soomaaliyeed waxa laga hadlayaa waa mustaqbalkiina guryihiina ku jira oo sidii hore ahaada ama kaalaya fursad istaan dowladnimada nala dhisaa maadsantihiin